السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلامي دمانتينا ميلو بعد جوكتان كسو دواذا موخالك مانتا محبوسكي ugu dambeeyay ee wariyaha caanka ah Clarissa Ward ay ku heshay xabsi ku yaalo dalka Syria ayaa la ogaaday inuusan ahayn qofka uu sheegtay inuu yahay. taasna waxa sheegay dad badan oo ninkaas yaqaano. waa nin iska dhigay inuu yahay maxbuuskii ugu dambeeyay oo meesha joogay xabsigaas ku jiray. waa nin iska dhigay inuu ahaa maxbuuskii ugu dambeeyay oo meesha ku jiray oo yaa soo helay Clarissa Ward yaa way عن واي فيك نيوز عن كتاهي وهويني وش خيسو شبكة BBC لكن هويني ذا وحي عن كتاهي وحيابها فيك رونا هانتي مرولب نيوز هذا يصور نكتو أما يعني صوت ديارسو ور هذا صوت ديارسو لازم وحاك خلدن لازم قصب واي وحاك خلدن وحا فيك مقع فيك لازم هويني ذا وحي سميسي أيضا إيو تيم كيتو حي آذين حبسي كمت xabsiyada ku yaalo dalka Syria waxaan u maleynaa xabsiga Sadnaya inuu ahaa marka meesha ay galeen qolalkii ay ku wareegay yani dadka way ordeen dadku waa aragteen sida ay uga cararayeen xabsiyada orod kabtay aaway wala orday kii bustada tuura ninkan waa loo galay uu iska jiifaa buu hurdooya caadi kaamirada lagu qabtay madani waxa la madani wuxuu dhahay ريض يعني شعب كان كميت أهي قرية لو خبطي ولا سو خبطي مركا على سو خبطي هوينيدي ku dhigi gacanteedu ku dhigi saxafiyada ayuu ku dhigi qof wuxuu iska dhigay qof tacbaan ah marka la wareystayna wuxuu dhahay waxaan xirnaa muddo 3 bil albaabka banaanka marka la soo saaray qorraxdu fi Allah qorraxda wuxuu iska dhigay qof oo muddo dhan iftiin arkin indhaha يعني الباب مركو كسو baxay ma aragtay indhahiis koru geeysato koru fiirinay farxad yani Allah fi aftina jirmiya asoo faraxsan taasoo dhan waxay ahayd wax fake ah wax matilaad maxaa yeelay ninkaas wuxuu sheegtay magac kale marka maadaama uu magac kale sheegtay laazim waxa jiro dad ku yaqaan waa qasab hadii lagu yaqaan waa lagu soo saaraaday muuqaalkii uu faafay يا فافي خلاص شبكة BBC ميل كستو جارا نورمال أوكي مقالك مركو فافي ضدكي وحيدا ور خوف كان مقع وشيغانايو ومقع فيكا ومقع خلدن مدك هلا موغي عربت وي شيش كي صارتين كلاريسا شيش كي صارتين محيالي واتي او غزة مركي تكتي او ساس دولك جيفتي او ديسي وحا صعد ان بلايو وح فيك اشيغيسي مركي ايون newska markay soo saartay shiishkay saarteen dhig way baareen ninka wuxuu noqday nin lagu magacaabo Salaama Mohammed Salaama waa sarkaal ka tirsan sirdoonka Bashar al-Assad sirdoonada Bashar al-Assad sidoo kale wuxuu ahaa yani wuxuu dhigan jiray wadooyinka isbaaro dadku dhac jiray dumarka dahabkooda ka qaadan jiray 2014kiina dad ayuu dilay dad oo rayid ah ayuu dilay sidoo kale dadkan uu soo xiri jiray wuuna baar jiray sirdoon uu ahaa marka waxa la qoftan mar walba fake news ay la imaato gormeen ka dhamaanayna shabakadaha newska oo dhan wax macquul ay keenooyin wax yani wax waadaxa wax fasiixa illa adiga illa BBC iyo qoftan Clarissa waxay keentay ninkii dadka xiray dhan ay keentay waxay dhahday waa kan ugu dambe may soo daahday ma ogi runahantii ma ogi yani qoftan ama shabakada BBC mar walba saas way soo daahday umaleena خلاص hadii aad soo daahday خلاص يا اخي محبوسيدي أما محابيستي وي عررين ده مايا يا حبسي أمر مية أوكي هذا يا إيه كاله أنكو دوبينا مثل ماجم مؤجي ما ماجم يكسو خبصدين مولا شخايا والله السياسة دان وانكو وريرن المهم نينكاس على كاني سركالو ها سردون كميت سردون بلا بلا والكين أصاب للدوبي دادكنا وي خبطين وحالله مقعي سلامة محمد سلامة واي وحونا يهي رير حمص مقعي سنة أما نانيستي سنة حتى والكيني وحوها أبو حمزة أيي إهيت نانيستيسا مركو حمص هاستي ودوينك استاغ إصبار لغان جري تدك لعكتا كداعي جري مركا أرينتاس كدب يعني شبكة ذا قار نيوز كو إسكا خاطان أوكي BBC نيوز كا شبكة كلا لابا شركة لابا شبكة أيا نيوز كي كخاطتي inay been ahayd newskan doodu dhali feegu noqday maxay sameeyeen labadan shabakad maxay sameeyeen BBC news ay ku laabteen war ninkan sirdoon waa loo yahay maxbuus maahan maxaa ka jira BBC maxay dhahday waan ka war doonayna
way ka wardoonayeen hadda marka waan sugeynaa ilaa ay ka wardoonayaan muuqaalka intaas uu ahaa waxaan rajeynayaa inaad ka heshay haddii aad ka heshay la wadaag asxaabtaadii ama u share garay marka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam